لم يذا قريه قريه إلا عدي كيرقليت الكني كذر لقاق صبحي كلميا هرسدي كلميا نهي كلميا وغردا كلميا نهي كلميا وغردا كلميا نهي كلميا وغردا لم يذا قريه إلا عري كيرقليت الكني كذر لقاق صبحي كلميا هرسدي كلميا نهي كلميا وغردا كلميا نهي كلميا وغردا كلميا نهي كلميا وغردا هو أود أمضة والمفدور مريض وحيوية مرشده وحسوسات ابن عمك أمض بلا هويني من وقفته هوينك بلا أفسية حضارة يبسين يا أخلاق يا أقوم أي سمد يهلد ليه بيدهان قبلكم عذارين سدوا عذارين وقبل حجرين وحيوان عربسي وحرمت في الأرض وحرمت وقلت وحرمت المدة دورفين كيبان لقد قصوني دورفين كيبان كبعيا markii ugu horeysay maaha nabad badan bay dhaceen nabadgelyo ku dhaceen xasiloonida ku dhaceen bisayl bay ku dhaceen waxaasoo dhan waxa sabab u ah ummadda reer somalilan oo ah ummad xariira oo waxay duwan isu taqaanaa ummadii boqol jeer baa baa idiin sheegay waa ninka musharaf maalinta waraynayo inuu yidhi hadday doorataan hadday halka igeysaan badhan macaaninayo anuun badhan macaaninayo mana macaaneyn karo beena idiin sheegi maayo golaha aan doonaya inay geysaan oo ay dursataana waa golo sharci dejineed oo u baahan inay fahantaan ahmiyadda iyo qaranka u leeyahay idin maalinaayo golaha wakiilada waxaase yaabaa idinka soo qaadaya laakiin waxaan idin leeyahay mahdihiinna iyo sharaftiinna iyo karaamadiinna iyo waxaad xaqa u leedihiin oo golaha laga suuro gelinayo somalilan intay jirtay waxa maqlaysay xeerar badan baa qabiyaa qabiyadaa jirta ayuunbay soo kicisay xusnuubile qayada dhamaystirkeedii iyo dabagelkeedii iyo xisaabtankeediiba ilaahay kuu fudeedeya ujeeddo ka weyn intaas uma sharaxni idinkaan idin sharaxanay sidaan loogu sheegay calankii ciidan u sharaxana haweenkan u sharaxana dalarkan u sharaxana dadka maalka ah in codkooda cid gudbisahan baan u sharaxana hadday yihiin wastaado farsamo yaqaano hadday yihiin waratada bacadayaasha dadkaa xaqooda in la raadiyo oo sharciga lagu raadiyo ayaan u sharaxana hogaamiye yaa rabsiye hogaamiye wuu dooraa baalasha dadkiisuna ku dooraa markii dadkiisu la socdaan garab taagan yihiin isla marhaantaana taageersan yihiin waxaa noqon doonaa ninka ugu baalasha badan leh sababtuna wax kale ma aha waa biseedkiinna iyo farihiinna musharaxiinta badan hadday iga fogeli waayaan kale noqon maayaan waayo natiijada doorashada haddii ilaahay mulisin marka lagu dhawaaqayo dhibcahan keenaya guri kasta iyo goob kasta iyo geed kasta qof soomaaliyeed ku nool yahay ayaa lagu ogaanaya markaa tuulo kama dhacayo qalabkan ka dhacaya idinkaana codka idinka doonaya
inay taageertaan baan doonaya in badan baan haweenaha ku jooga in badan baan quruubtiina ku soo farxiyey soo maaha maasha iyadoo dhaniba ina maalintaada madalkeeda iyo quruubteeda ka farxisaan baan doonaya sidaan umido inaan codigi ka doonayo ayaan u rabaa inaad iga doonaysaan haddii ilaahay guurayo la talaadana codkiinaan ku heli doonaa idinla dareen baan noqon doonaa miiskaa iyo golahaasi waxaan la tegi doonaa wax weynaad iga filasaan oo maxaad iga filaysaa inaan karaamadiina ilaaliyo inaad iga faantaan inaan waxaad xaq u leeyihiin aan ku dadaalo nidaamka dimuqraadiga ah waddankeena ka hirgala in badan oo inagu xeeran waddamadan geeska kama hirgelin inaynu xoojinno ayaa loo baahan yahay waxaa loo baahan inaad ujeeddo ku coodayso taqaano waxaad u codaynayso waxaa loo baahan yahay in fursadda qaaliga ah ee codayntu ay muhiim kuu noqoto waatan hadbadaygu ahaa isbeddel codkaaga kama horeeyo imikana waxaan idin leeyahay waxaan idinka doonayo waxaa igala weyn waxaan idinla doonayo الموضوع بكتير مهم وانت المثل ومد بين وهميك سعطا سمعنا لنبريد انت بكراها بوسي كمهلين لكن القوس الهدين كان يمرينه لعق ايه هنتقوك حصول هذا المال المسيطا هو قوس هنستا ايام هذا ما انت نغفصيه لكن حبيب بيهايا انهم مرحان كونه maamulkii maxamed siyaad barre wuxuu ahaa maamul dalka dhisay balse aan dadka dhisin taasi waxay keentay dalkii dhisnay dadkii aan dhisnay inay duniyaan innagu dadkaynu dhisannaa oo dastuurka umadnimada ku dhisannaa oo dimuqraadiyadaynu ku dhisannaa oo far qof iyo coda ayaynu ku dhisannaa wax kasta oo aad doonaysaan si ay igu hirgalaana waa inaad adigu calanka somalilan dalabka kaaga badanaad ka giijisaa waxaan kaga tegayaa maygu leeyahay nidaamkii dimuqraadiga ah iyo dunida inteeda badan isticmaasho sidaan sheegay wuxuu ka mid yahay nidaamyada qarnigii 20aad ugu guulaha badnaa haddaba waddamada samaystay reer galbeedku si ay og tihiin kolba siday doonaan bay dimuqraadiyadda u dhigaan soo ma aragtaan looga wareego farada looga farada maydhana iyadoo shabeello iyo waraabayaan iyo halmacay hindoo hubinaya sidaasoo kale ayay bini'aadamkii qaarkood dunida ka noqdeen sida ay xayawaanku duurka ugu nool yihiin daldamood isagoo qoriyo mintii laga hesheeyo ee maatigi lagu sheego ayaan laga calis weydiinay yana wartay reer galbeedkoo dimuqraadiyadda ee leh sacuudigu dimuqraadi maaha base inay haddii doorashadana la habsaanto way yidhahdaan soo maaha taasi waxay kuu tusaysaa oo caddaynaysaa cid kasta ay dan kala yihiin inaan weerano innagu waxaan doonaynaa inaynu awoodeenna iyo farteenna iyo codkeenna iyo ilbaxnimadeenna iyo cadaaladeenna iyo aqoonteenna iyo wadajirkeenna iyo waxaanshaheena meel ku marno ku noqonno haddii aan ka nihaa jiilashii dalkan iyo caalamka soomaaliya ku baraabaystay jiilashan iga dambeeya way ka lexjeclo badan yihiin kuwii hore waayo caalamkan geldurooda qabto dunidooduna noqday calanka raba ma yaaran guushuna waa imanaysaa maalin maalmaha ka midana somalilan iyadoo wada jirtay guulaysanaysaa inagoo gacmahaasisnay guulaysanaynaa xisbiyada qaranku waa xisbiyadeennii inagaan samaysanay waxaanu u samaysanay inaynu isku dowranno inamada ka sharaxanno waa wada inamadeenii qof kastoon dabuuli wanaagsan ku tuumayo halkiisa lagu tagay xisbigii doonabaha ka sharaxnaadeen waxaan ku warmakee aynu golaha tagno aynu ummadda waxu qabanno marka anu horta musharaxiinta lixdanka ah tartan kulama jiro iyo dibudhaca iyo qabyadaan tartan kula jira ciidankeena qaranku waa ciidanka somalilan ku tahay
kaasoo loo baahan yahay inuu sharciga ilaaliyo ciidankaasoo loo baahan yahay inuu xeerka iyo sharcigu xaqooda iyo xuquuqdooda u soo buhiyo anagu fili maayo inaan xaqa askarteenna sharafta leh aan ka aamusi doono maanta codkiinaan doonaya codkaasaan idinka doonaya codkaasi waxaan doonaya inay ducada u raacisaan haddii ilahay khayr iilahuu meeshaasi igeeyo waxaad iiga marag ahaataa haddaan tago inaynaan marnaba codkiinaasi ku tasaareen waxaa ugu weyn oo idin xasuusinayaana waa astaanta oo ah xidid markaad meesha daahoo gasho maqsinka xasuuso anigoo xidigtii wata inaan kuga codkaabaysi dhammaantiinaan idin himbaryeelayaa anigoo arabsiyo shaksiyan magaalooyinka kale oon ka jecelahayo inta badan waan wada magaalada ganjab ahaan waxaan idin leeyahay waxaan mahadnaqayaa dhallinyaradii hawshan soo abaabushay suuro gelisay inaan halkan ka soo dalgalay ilaahay ka sokow fanax miitinkiisa waan mahadnaqayaa waxaan mahadnaqayaa gudoomiyihii hore xisbiga kulmiye inkana aan ka tirsannahay gudoomiyaha kulmiye ee degmada arabsiyo gulushu way imanaysaa ilaalin bay u baahan tahay waxay u baahan tahay sabir dilid bay u baahan tahay beer bay u baahan tahay waxaan filayaa maalinta ciidaynta inaad ii daawi doontaan adagga ii taagnaan doontaan anada ii soo wada bixi doontaan waa waxaan ogahay in caawo igu soo baxay naga odayseen xaggeeda wax fudud ma aha qof kastoo codkaysii waa qofi karaani inuu isharfay taasi waa midaan ogahay abaalkeena ay ugu hayo kuma gudayo inaan waxa idinka dhex buuxaya inaad matalaadda ayga heshaan haddii xildhibaanada imika aad dooranaysaa ay noqdaan xildhibaano iska fadhiya waxba isbedeli maayeen laakiin haddii xildhibaanada noqdaan xildhibaano si dhiba idiin matalaya dalkana daruurad ba noqon dalkana wuu isbedeli qofku waxay qabtay waxa ku yeeli waxa sharciga qabtay waxayna hay'adaha hantida ugu weynay leedahay xoolo tahay inagoo xoolole hilib qayliin iyo caana inoo soo dega inagoo xoolole hilib qayliin iyo caano ayaa inoo soo dega xeer baa kala saara waxaynu u baahannahay waxaynu u baahnayn laakiin qof ma kala saaro xeerashaasi ayaa loo baahan yahay in la dhammaystiro waxaa loo baahan yahay degmada arabsiyo inay isu tashato ay Soomaaliya inteeda kale tamaandhadu ka dhigaata u soo saarto iskama soo saarayso laakiin xeer bay ku soo saaraysaa xeerkaasana ilaalinaya inaguna waxa laynagu xantaa gobolkii cagaarnaa camalaha gobolku iska cagaarnaan maayo ku faari inuu ibcaha roobka dhulka ka yimaado dhulka ku daa oo durba ku soo baxa oo tacala ku darsano oo wadajin ku darsano oo nimino ku darsano waxaa laga wadaa waxa ugu badan dadka deegaankan iyo gobolkan ay ku dhex buuxayaan inay yihiin gobolnimada degeli anigu degmada markaa sidaa u tahay gobolnimada soo dhicinaya laakiin waxba xaggeeda ku baaqan maayo gobol ahaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu